xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka hadlaysa madal ay isugu yimaadeen ummad Soomaaliyeed taasna lagaga arrinsanayay arrimaha badda iyo dhibaatooyinka ay Itoobiya ku hayso dalka Soomaaliyeed iyo rajiimka Muuse Biixi jabhadda argagixisada Islam heshiis ku sheegay kula saxay Itoobiya bad Soomaaliyeed inay qayb kamid ah siiyeen ayaa sheegtay in aanay iyada dawladda ay ka tirsan tahay Mareykankaba in aanay marraba ogolaanayn waxa weey in bad Soomaaliyeed loo saxeexo cadow muqaalka ila dhageysta Ilhaan Cumar oo arrimahaasi ka hadlaysa marka daraad markii ayaan dhaxdaas markii aan maqalnay in qaar Soomaali ah ama Soomaali sheegato in Itoobiya ay la galeen heshiis dad badan ay soo wacay oo waxay leeyihiin Ilhaan dawladda Mareykanka inaan la hadashin waaye anaga tax ka dhiibna waaye waa wadankii gabar idinka dhalatayne ee Congress-ka fadhiso intii aniga aan Congress joogo wadanka Soomaaliya biyaheeda dad kaleeta iyo badeeda dad kale ma qaadanayaan way halka ugu jooji Ilhaan Cumar Allah barakeeyo waa gabar boqortooyo oo waawey hadii ku hartiya oo Marseteena oo Ismaan Maxamuud oo Landera oo Kablalaha oo Daaro Ismaaciila runtii muddadii ay joogtay Congress-ka Mareykanka wax badan bay dadkeeda Soomaaliyeed bayada aan qalin la oranba ay u qabatay waxay sheegtay inay inta Congress-ka fadhido inaan bad Soomaaliyeed la bixin karin cid kale la siin karin dawladda ay ka tirsantahay Mareykankana ay waxa weeye arintaasi mowqif cad iyo siyaasad cad ay ka leeyihiin waa markale wuxuu qoysgoonaysaa Muuse Biixi iyo rajiimkiisa oo doonaya markasta inay wax kasta dhaafsadaan inay waxa weeye dhulka dalka Soomaaliyeed ba ka kareeyaan ama ka iibiyaan dad shisheeye ah taasina wax suurtagelaya ma aha Muuse la weydiiyay markii horeysa ku soo laabtay maxaa Mareykanka ku soo aragtay waxa jirtay hadda ka hor watay Mareykanka bishii March 2022 watayna weerareen saldhig military ba Mareykanka laga siiyay Berbera dowladus baheer military Mareykanka ku sameeyay doona wax weey Berbera waxa soo dhawaatay la soo afsaray Mareykanka uu tagay aqalka Congress ku tagay Soomaaliya ugu horeeyay in loo geeyo waxa Ilhaan Cumar oo gobolma tirtan hartiya uu yahay war kuwan miyaan ahayn kuwii aan la dagaalamayay kuwii aan iska soo horjeeday kuwii aan opposite-ka isku ahayn marka wuxuu war nimankaas meel walba inaga horeeyaan xaq iyo runta hadaan isu sheegno nimankaasi Daaro Ismaaciil yiraahdo meel walba ay ka horeeyaan Daaro heerka leeyahay wareer Ilaahay badiyay meel kasta ama dawladaha Mareykanka dawladaha reer galbeedka markay soo galaan qaxoonti ku noqdo waxay ka bartaan jaamacadaha galaan iskuulada galaan halka kuwa Muuse Biixi reerkiisana ay bisaskay tagaasida wadaan oo ay xabaran marka Ilhaan Cumar hadalkeedu muxuu saameyn ku yeelan karaa saameyn ku yeelan karaa waa xildhibaan sanad ah runtii saameyn weyn oo toban ku leh siyaasadda Mareykanka dadka jaangooye ah arinta ay sheegtay waa arinta Mareykanku waa si hore u sheegay wax la yiraahdo Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya iyo jabhadda argagixisada ma jiro Mareykanku wuxuu aqoonsan yahay Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya iyo dhul iyo deegaanba waxay aqoonsan yihiin Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya mana ka ogolaanay dhahan in xadgudub runtii lagu sameeyo warkan Ilhaan Cumar ka soo yeelay waa cadaabiya naar marka la joogo Hargeysa iyo Burco aad iyo aad baan uga naxayaan isha cadawkaadadan baan leenahay adeer aad baan u maasan tahay dadaalka iyo hawsha wanaagsan ee aad ku jirto runtii beerka ka ogsooni waxa rajayn doona insha Allah ta'ala in aan kugu casuuno dhulkii halganka daraawsheed ee SSC qaatumo dhulkii uu gabdhaha waa tagtay dhowr sano ku soo laabatay laakiin dhulkii halganka daraawsheed iyo halganka Soomaaliyeed ba ayaan kugu casuumi doonaa waana imaan doontaa insha Allah ta'ala waxa rajaynayaa casuumadaas in aan qayb ka noqdo insha Allah markaan dalkii tago insha Allah aan invitation gaar ah aan Ilhaan u diro si ay dhulka deegaanka ay u marto adduunka iyo caalamka ugu soo jeediso dhulkan runtii hodanka ah ee petrolka iyo saliidda qaniga ku ah ee maamulka ee khaatumo ka arrimay ee nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaagu ay ku naaloonay insha Allah taasna waa ka shaqeyn doonaa insha Allah ta'ala